maalinta siddeedaad dhalashadii cunugga kadib waa la guday yuusuf iyo maryam waxay cunuggii geeyeen macbuudka yeruusaalem si ay naftiisa ilaah ugu hibeeyaan macbuudka waxaa joogay wadaad caalim ah lana dhihi jiray simcuun ruuxa quduuska wuxuu caddeeyey inuusan dhimanaynin intuu ka arkayo boqorka duubanaha masiix ilaahayow ballantii adiga qaadday waad ii oofisay hadda kadib adeegahaaga oofso indhahaygu waxay arkeen badbaadiyaha cunugan rabbi baa doortay rabbigu ha idin barakeeyo kadib markii sharciga ilaah ka rabi guteen ayay tageen yeruusaalem muddo kadibna u soo noqdeen tuuladoodii naasaret markii wiilka ciise 12 jirsaday ayay yuusuf iyo maryan u soo wadeen yeruusaalem iidda furashada reer bani israa'iil lana yidhaahdo iidda kormarista ee basax markay iiddii ka soo noqdeen waxay u maleeyeen inuu ciise la socday qaraabadii safarkooda laakiin yeruusaalem ayuu ugu soo haray markay waayeen yeruusaalem ayay dib ugu soo laabteen raadiyeenna maalinta saddexaad ayay macbuudka ka heleen isagoo caalimiinta diinta reer bani israa'iil la socda waayo culugaa xigmadda leh halkuu buu noogu yimid wiilkan waa reer naasaret inuu nala socdo baan moodnay ka raalli noqda qaskiisa qof kastuu hadalkiisa xigmadda leh maqlay wuu la yaabay wiilkaygiiyow maxaad sidaan noo yeeshay annagu aad ayaan kuugu murugoonnay sidaan kugu heli lahayn maxaad ii raadinaysaan ma ogidiin miya inaan guriga aabbay hawl ka hayo waalidkiisa ayuu uula noqday naasaret wuxuuna ku barbaaray xigmadda ilaah iyo dadkii dhaqanka wanaagsan lahaa